بسم الله الرحمن الرحيم. halkan nagala socotaan waa Caawiya Online College. darsigeenu waa daryeelka macaamiisha. waxaan ku guda jirnaa qodob ku saabsan afarta tiir ee asaasiga u ah daryeelka macaamiisha kana dhigaya mid cajiib ah. qodobka ugu horeeya darsigeenu waa afarta tiirka ugu horeeya waxa weeye personalization. personalization waa meaniskii aad macaamiisha aad baahiyahooda ula kulmi lahayd si maaragtay hufan, kadibna aad maaragtay xiriir ula sameyn lahayd. xiriirkaasoo fudud oo aad macaamiishaada baahiyahooda ku ogaan karto si aad qanaacadooda u gaarto. mar walbaba adeega cajiibka ah waxa uu ku bilowdaa waa isdhexgalka bini'aadanka, waayo kombiyuutarada ma aha sida bini'aadan. waad dareemi kartaa qofka bini'aadanka ah markuu qof qaabilayo wuxuu dareemi karaa baahida qofkan uu hoogayo iyo wuxuu u baahan yahay. wuxuu kala kulmi karaa weji furan, su'aal, caawin, laakiin ma aha kombiyuutarka sida bini'aadanka oo kale. ma sameynayo keliya wixii program ah unbuu u sahlaya, laakiin ma laha weji furan, physical expression, ma laha su'aalo, ma laha maxay ahayd xiriir kale iyo caawin kale ma laha. personalized interaction marka xiriirka marka la sameeyo bini'aadanka waxay sare u qaadi kartaa customer service, adeega macaamiisha ayay sare u qaadaysaa. waxayna ka dhigaysaa inay macaamiisha dareemaan in la daryeelayo, problemada iyo cabashooyinkoodana tixgelin la siinayo oo la xalinayo. marka macaamiishu hadday ay soo booqdaan ugu horeysa webka ay soo booqdaan waxay ku bilaabaan si email ah, laakiin waxaa loo baahan yahay markay warqado email soo qoraan su'aalo waxaasay u baahan yihiin inay ka heli karaan pageka caawinaad sida live chat waxay la mid ah. marka intaan anaga ku fikri lahayn inaan maaragtay adeegaas aan horumarsiino iyo xiriirkaas inuu yahay wax anaga maaragtay expense amba cost nagu ah maqrash, waxaa habboon inaan u aragna fursad oo aan ku hanan karno macaamiisheena si businesskeena ugu soo xirmaan una bulaaliyaan. sida xaqiiqdu ah haddii macaamiishaada aad ku ilaaliso farxad inay ku faraxsanaadaan adeega u qabanayso si farxad leh, ayagana waxay sameynayaan marketing ayay ku noqonayaan, waxay gaarsiinayaan asxaabtoodii iyo dadka kale ayaga xiriir kala lahaayeen. halkan waxaan ugu gudagalaynaa qodobkii labaad amba tiirkii labaad, competence. waa inuu qofka aqoon u leeyahay wax uu sameynayo. competence marka waa qodob muhiim ah, waa qodob aad u muhiim ah oo kaalin aad u mug lehna ka qaadanayo daryeelka macaamiisha iyo ogaanshahooda baahiyahooda. marka waxaa loo baahan yahay dadka u adeega macaamiisha inay ahaadaan kuwa aqoon u leh adeegyada ay qabanayaan. for example qofkan hadduu yahay service ka shaqeeyo telecommunication waa inuu base ahaan telecommunicationka adeegu qabanayo uu ka dhisan yahay. hadduu product soo saaro waa inuu productiga kala yaqaanaa, qiimahooda, qualitygooda inuu ka gadi karo qofka macaamilka ah. sidoo kale waa in haddii cabasho ay timaadana oo xalkeeda heli karo. mar walbo
oo daryeelaha amba howlwadeenka howlwadeenka maaragtay kambaniga u qaabilsan oo macaamiisha xiriir maxay ahayd uu keergareeyo mar walba aqoontiisa ay heertarayso waa mar walba uu yahay mid mar walbaba oo haddii aqoontiisa ay heersarayso waa mar walba asaga uu yahay more competence mid aqoon u leh amba hanan kara macaamiisha. Tiirka afraad waa confidence ku habboon maadaama marka hore personalization oo interactionka maxay ahayd in lala sameeyo macaamiisha aan soo sheegnay. qodobka labaad waxaa inuu competence aqoon u leeyahay maxay ahayd adeegii amba wixii uu bixinayay. mid saddexaadna waa waxaa loo baahan yahay habkee u marsiinaa midkee most confident ama haddee ku habboon in loo marsiiyo channelka ugu habboon ee loo marsiin karo confidence. marka macaamiisha waxay had iyo jeerba u baahan yihiin dadka maaragtay wakiilada ka ah adeega macaamiisha inay helaan channelka ugu habboon ay usoo maxay ahayd usoo marsiin lahaayeen messagekooda yani channelka ugu habboon ay ku wada xiriir lahaayeen ay u baahan yihiin. marka maxaa loogu baahan yahay tiimkan customer service-ka ah waa in ay ka shaqeeyaan isdhexgalka amba waa inay ka shaqeeyaan haddee channelka ugu habboon ee macaamiishu adeegsato for example social media for example Facebook oo kale waa in Facebook diiradda la saaraa isdhexgalkiisa. maxaa markaa loogu baahan yahay waxaa loogu baahan yahay in istaraatiijiyadaada aad ku xirto in macaamiisha wadada ugu habboon ee aad ku gaarsiin karto messagekaaga iyo adeegyadaada kuna ogaan karto cabashooyinkooda kuna heli karto hadba meesha aad ka xalin lahayd inaad ka ogaato. waayo haddii aad ogaato cabashadooda waxaa helaysaa meesha adiga aad ka liidato hadday quality tahay hadday macaamiil xumo tahay waxaad samaynaysaa inaad meeshaas iska dhisto kadibna aad qanciso waayo waxaa heshay waddo aad ku ogaan karto macaamiilka aan qanacsanayn kadibna aad ku xallin karto. marka waa inay u fududaato customerka sida ugu habboon oo kula soo xiriiri karo ma aha habka kula soo xiriiraya inay adkaato waxaa la rabaa inay tahay mid fudud oo hadiiba hore uu ka ogaan karo. marka hadday taas fududaato maxaa dhacaysa waxaa dhacaysa marka macaamiilkii haddii baahiyahaaga u baahda adeegaaga oo kale inuu ogaan karo meeshuu kala xiriiri lahaa hadday cilad qabsato kale habka uu kusoo mari lahaa. taasi marka waxay samaynaysaa inay fududaato qaabka cabashooyinka ah kuwa maxay ahayday aad ku xalinayso una noqday oo maxay ahayd wadada adeegsanayso mid hagaagsan oona toosan inay noqoto organized ah. for example macaamilka qaab uu kula soo xiriiray markuu kula soo xiriiray inaad gaadgarin karto inaad daatada ka reeban karto midka aan qanacsanayn kadibna maaragtay dib u wici karto oo xalin karto oo ogaan karto raydka aan qanacsanayn iyo kuwa qanacsan oo kale. marka system for handling each channel should be organized waa inuu noqdo mid hagaagsan anda inuu noqdo straight forward mid toosan inuu noqdo. qodobka afraad maadaama aan ogaanay personalization oo qodobka labaadna aan soo marnay oo ahaa competence inuu qofka aqoon u leeyahay wuxuu adeeg u bixinayo convenient wadada ugu habboonayd in loo mariyo. qodobka ugu dambeeya proactive qofka waa inuu noqdo mid firfircooni ay ku jirto oo proactive ah wuxuu falka markuu dhaco kadib maahe ka hor diyaarsan. marka customer waxay u baahan yihiin in ayagoo haddee wixii intaysan maaragtay culayska dareemin ama markay culayska dareemaan intaysan ayaga soo camal ka hor in la ogaado inay cabasho jirto amba intaysan baa maxay ahayd culayska dareeminba inaad sii ogaato hadduu culays jiro kadibna maxay ahayd at least apologize ah ka bixiso.
haddii for example product la dalbo kale amba adeeg lagaa dalbado kale dib u dhac aad ka dareemto intaysan macaamiishaada waxaa muhiim ah inaad message u dirto oo aad gaarsiiso aad dhahdo karaale ahaada waxaa dhacay dib u dhac yar waana ka xunnahay. taasi marka waxay ka qayb qaadanaysaa inaad proactive tahay macaamilka intuusan cabashada la iman inaad ka hortagta una sheegto reasonka amba sababta keentay inuu dib u dhacaasi jiro. inaad proactive tahay maxay samaynaysaa waxay ku tusaysaa kambanigaaga inuu yahay mid maaragta mas-uul ah lana aamini kara ay ku tusaysaa. laakiin haddaan proactive ahayn oo adeega aad dhahday 5 daqiiqo ay ku helaysaa 2 maalin gudahood lagu helo 2 maalin kadib la helo noqonaysaa inaan lagu aamini karin inaadan mas-uul ahayn. laakiin haddii xataa cilad ay jirto waad macaamiisha la wadaagto taasi waxay tusaysaa inaad adiga keer garaynayso danaynayso oo aad wargelisay proactive naa tahay. cashirkeeni kulley halkan ayuu nagu egyahay waxaana jecelnahay waxaana filaynaa hadduu allayno in kuwa cashiro kale oo ku saabsan adeega macaamiisha iyo qanaacinta ka qayb qaadashada qancintoodaba aan soo gelin doono. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.